بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعنا ونكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaadhay oo aad si toos uga daawanaysaan muuqbaahiyaha madaxa banaan ee Raya TV xaruntiisa guud ee magaalada Boorama warka waxay ni soo jeedinaya haduu Allah awood leeymo anigoo Cabdilaahi Diiriye Cabdulli Nadaara qodobada daawadayaal ugu doorka roon aan idin haynana waxa kamid ah koobka sanadlaha ee dugsiga hoose dhexe Umar bin Khadaab oo si habsami leh uga socda garoonka weyn ee Sporty Village ee magaalada Boorama aqoon kororsiga socday hotelka Rays saxaafadda iyo hay'adaha garsoorka ee magaalada Boorama ayaa lagu soo gabagabeeyay halkaasi daawadayaal intaasi waa qodobada ugu doorka roon aan idin hayno haddaba daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan koobka sanadlaha ee dugsiga hoose dhexe Umar bin Khadaab oo si habsami leh uga socda garoonka weyn ee Sporty Village ee magaalada Boorama waxa si rasmi ah u bilowday tartanka sanadlaha kubadda cagta ee dugsiyada Umar bin Khadaab ee magaalada Boorama kaasi oo si weyn uga furmay garoonka Sporty Village ee magaalada Boorama tartankan waxa soo qaban qaabiyay maamulka iyo macallimiinta dugsiyada sare ee Umar bin Khadaab ciyaarahan kubadda cagta ayaa waxa ka qayb qaadanaya fasalada dugsiyada sare iyo fasalada dugsiyada hoose dhexe ee Umar bin Khadaab tartan ciyaareedkan ayaa looga gol leeyahay sidii lagu dhiirigelin lahaa la iskuna bari lahaa ardayda wax ka barata dugsiga Umar bin Khadaab ciyaartan furitaanka ayaa waxay dhex martay fasalada 4A iyo 3A Faisal Daawud waa mid kamid ah macallimiinta dugsiyada Umar bin Khadaab kaasi oo soo qaban qaabiyay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Umar bin Khadaab waxana uu ka waramay ahmiyadda iyo ujeedooyinka tartankan looga gol leeyahay waxa mahad iskale Ilaahay ciyaarahan maanta la qabanayo 24 bisha Tobnaad 2016 waxa iskala wata mahad maamulka dugsiga sare hoose dhexe iyagoo la jeclaystay ardaydaas inay qabtaan tamaashaad ay maalu ee sanadka loo qabtaan ardaydaas oo dheer yahay maxay iskuulada ka jira maxay magaalada Boorama gobolka oo dhan run ahaantii ardayda maanta ciyaaraysa waa ciyaartii ugu horeysay ku furayna ciyaaraha dugsiga sare labada galaas ee 3 iyo 4 waxaan rajaynayaa insha Allah labada kii badi baana waa bahayda waxaan rajaynayaa maxay ciyaar fiican ciyaaraan aad ma santiin kulay waa nashaadaad dugsigu uu dheeryahay nashaadaadka dugsiyada ka jira magaalada Boorama sanad kastaba waan u qabanaa waxayna ku dhamaataa si degan oo guul ah waxayna ardayda maxay haydeen ugu sameeynaa nashaadaad iyo waxa ay ka helaan waxa kamid ah nashaadaadkaasi isbarashada jimicsiga iyo ka maxay haydeen motivation ka helaya maxay haydeen qaabkii jimicsigooda marka waxaan u rajaynayaa dhamaan ardayda maxay haydeen ka qayb galaysa guul sidoo kale ciyaartani waxa ka hadlay labada kabtan ee kala hogaaminayay fasalada ciyaartan lagu furayay ee 4A iyo 3A waxana ay ka warameen dareenkooda iyo shucuurtooda waxaan ku raadayay ka dhisan gobolkan awal ay si fiican inoo deen doonaan insha Allah hadii Ilaahay raado ayaan rajaynayaa ciyaartana insha Allah waxaan rajaynayaa in aan soo bandhigi doono ciyaar aad u fiican oo maxaan ku raadayay sharaf iyo maamuus leh naga maqneen dhiirigelintooda waxa kale oo aad iyo aad ugu sii mahadnaqay macallin Muxtaar Xasan oo ah macallinkan soo asaaskayga xagga ku ahaaneed iyo dhinac kastaba xagga waxbarashada markaas aad iyo aad buu maasantii dhamaan maamulaha guud ee dugsiyada Umar bin Khadaab Cabdiwahaab Cabdilaahi Aadan oo isaguna goobjoog ka ahaa furitaanka tartankan ciyaaraha ee kubadda cagta ee Umar bin Khadaab ayaa ka waramay ahmiyadda iyo ujeedooyinka laga leeyahay tartankaasi kaasi oo ku tilmaamay in guud ahaanba tartankan loogu talagalay in la isku baro ardayda
wax ka barata dugsiga Cumar bin Khadaab. ujeedada aanu ka leenahay ka maamul ahaan iyo ka macallimiin ahaan waxa weeyaan maadaama ardayda iskuulkii ay ismagac yaqaanaan fasalo kala duwan ay wax ku bartaan kow in isbarasho uu noqdo barnaamijkani waxa kale oo markaasi uu noqonayaa mid ay ku kulmaan ardaydu oo ay isku bartaan dhexdooda mid ay markaa ku bartaan tasaamuxa iyo iscafinta mid ay ku bartaan fulinta qawaaniinta dugsiga iyo xeerasha maxaa yeelay ardaygu marka uu xeerka sportiska uu fuliyo waxaa dhib yaraanaysa inuu xeerarka kale ee dugsigana uu si dhib yar u fuliyo run ahaantii kulankan ama furitaankan xafladan oo maanta ay ka qayb galayaan ugu yaraan 6 fasal oo dugsiga sare ah iyo 6 fasal oo dugsiga dhexe qolo waliba gaarkeegu ay u tartami doonaan waxaan rajaynaynaa inuu ku bilaabmo si wanaagsan oo nooguna dhammaado si wanaagsan ciyaartan dhex maraysay fasalada 4A iyo 3A oo ahayd mid xiisad iyo xamaasad badan ayaa waxay guusha ku raacday fasalada 4A oo 2-1 kaga guuleystay fasalka 3A. Axmed Riicil Tire, Raya TV. aqoon kororsiga socday hotelka Rays saxaafadda iyo hay'adaha garsoorka ee magaalada Boorama ayaa lagu soo gabagabeeyay halkaasi. waxaa maanta oo bishu tahay 25 bisha tobnaad 2016 lagu soo xidhay tababar loo qabtay suxufiyiinta gobolka Awdal iyo bahda garsoorka. tababarkan oo fulintiisa iska kaashanayeen IMS Focha iyo ururka suxufiyiinta ee Socha ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay maanta hotelka Rays ee magaalada Boorama. tababarkan oo qaatay muddo 2 cisho ah ayaa waxaa soo xidhay gudoomiyaha suxufiyiinta gobolka Awdal ee Socha Hashim Umar Good waxaana uu sharaxay ahmiyadda tababarkan iyo waxa laga faa'iiday iyo wixii qabyo qoraal xeerka saxaafadda Somaliland kaabis iyo bedelis la isla qaatay dib loogu celin doono xubnaha boorka ee Socha. isaguna waxaa dhinaciisa ka hadlay Liiban Ibrahim oo ka socday ururka Socha soona dhaweeyay muhiimadda tababarka aadna ugu dheeraaday. waxaa iyaguna dhinacooda ka hadlay ka faa'iideystayaasha tababarkan soo dhaweeyayna tilmaamayna in baahi weyn loo qabo tababarkani balse ay tahay in laga xaajoodo sidii loo badin lahaa tababarkani noocan oo kale ah. kasoo gabagabeynaa saasoo inoogu dhammaaday bahdii garsoorka ee xeerlaalinta iyo garsoorayaasha iskugu jiray saxafiyiintii iyo dhammaan ururkii Socha ee hawsha fulinayay aad iyo aad u shaqeeya anigoo ku hadlay markaa magaca ururka waxa aad barteen tababarka iyo shirkeena labada maalmood waxaan doonaynaa inaynu dabaqno saxaafad ahaan aynu ilaalino xeerkeena ay noo qoran lambar 720 ee dastuur muxuu ahaa wasixiyay golaha baarlamaanka iyo xukuumadii hore meelaha ay wax ka dhiman yihiin intii aad ku darteena waa la qaadanaya waan horgeynaynaa maaragtay fikir ahaan saxaafaddii gobolka Awdal iyo guud ahaan iyadoo isku wada jirta inaynu hor dhigno muxuu ahaa wixii fikir aad ku biiriseen aad baan soo dhaweynaynaa saxaafadaha garsoor u baaqaya xukuumadda lafteeda hay'adaha naga caawiyo dhinaca xorriyadda qowlka iyo kobcinta saxaafadda inay iyaguna dhinaca wax nagala qabtaan ayaan ka ururahaan ka codsanaynaa kadib iminka hawshan nagala gacan qabanaysana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. horaad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa golaha galweynaha meesha fadhiya ama kasoo qaybgalayaasha ka socda golihii sharci dejinta golihii garsoorkan ujeedayay cafwan iyo saxaafadiiba kulan muddo kooban socday bay noo socday maalmahanba. waxaan rajaynayaa kulankaas inaynu ujeedadiisii ka midho dhalin doono insha allah. ujeedadiisaasoo ahayd in golaha garsoorku ay dabaqaan xeerkii saxaafadda u yaala ama press law waxaa la oran jiray press law 27/2004 ay u hoggaansamaan sharciyadan iyo howlahan ay inta badan kasoo shaqeynayeen dalada ay ku midoobeen Socha. aad baad mahadsantihiin sidii gudoomiyaheenu noo sheegayba shirkuna waa inoo xulan yahay. gobolka Awdal ka qayb qaadanayay tababarkii labada maalmood dugsiga nooga socday magaalada Boorama kaasoo gabi ahaanba isku soo hor fadhiisteen bahda garsoorka iyo cadaaladda iyo bahda saxaafadda
waxaana inta badan lagu munaaqashoonayay lagana doodayay yani xeerka saxaafadda ee loo yaqaano 27/2004 ee dastuurka Somaliland iyo bal sida uu qabyo qoraalka u yahay taasi aanu ka faa'iidnay waxyaabo fara badan oo aanu ogaanay iyo waxyaabo kale oo aanu anaga laftarkeedu ku soo kordhinay intii aanu ku jirnay dooda iyo mataqaanaa ku guda jirkii tababarkaas. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. magacaygu waa Maxamed Awadaay waxaan ka mid ahay suxufiyiinta ka howlgala gobolka Salel kana soo qayb galay aqoonsi wadaarsiga labada cisho lagu sameeyay Hotel Race magaalada Boorama. maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo aqoonsi wadaarsiga manaha markii ugu horeysay walow maanta wax badan faa'iido halkan maantakeygii waxaan marka koobaad uga mahad celinayaa مسؤولينته سرية أو مسؤولين كسومان لا سولجا أو ريو الدنيا محمود عبدي جامع حوتو. وعلى الدكتور الله بريء كسورة كترسل وكمان الحال كان يقول هذا وحنا نحن قال لي شرعية صحافة لقى هذي شرعية صحافة سبيلار كاس وتصاب سنة شرعية صحافة قبل قرارها ولا ربين لو فنقريه لو هلاجيه مركز واحد بدل ما نكون فلقينا لكن كسرهان واحد مشكلة مركز الورد معنا وهي واحد دقيقة هي لأننا كقيم قالوا وحي لو كل دي وحي لقى دميو مركز في عمان اللي هي صحافتنا عاد قبل الدنيا خاصة نقطي وحيالا مركز وهرس كسرهان صحافة العالية هي العالية عن كولا قيم قال النحير محي الدين عبد الله محمود تلفزيون مدح بنان الرية تي في مقالة بورما داود القضبة وررك عالم كان kooxda islaamiyiinta al-shabaab ayaa sheegatay in ay ka dambeeyeen weerarkii xalay lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Madheera ee waqooyiga bariga Kenya weerarkaasi waxaa ku dhintay 12 qof website xiriir la leh kooxda al-shabaab ayaa sheegay in bartilmaameedku uu ahaa dadka masiixiga ah ee aan ka soo jeedin deegaankaas ciidanka dawladda Kenya ayaa saaka magaalada ka bilaabay howlgal waxaana gabi ahaan baxireen goobaha ganacsiga wariye magaaladaas ka howlgala ayaa warbaahinta u sheegay in ay xitaa masjid ku yaala bartamaha magaalada Anana asaaka lagu tukan salaada subax qaar kamida dadka ku dhintay weerarkaasi waxa la aaminsan yahay in ay ahaayeen mas'uuliyiin ka yimid Nairobi oo ku howlanaa diyaarinta imtixaanaadka qaranka ee dugsiyada sare waa weerarkii labaad ee Madheera ka dhaca muddo bil gudaheed ah debley hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa magaaladaasi ku dilay 6 qof 3 isbuuc ka hor boqolaal qof ayaa ku dhintay weerarada al-shabaab ay ku soo qaadaan dalka Kenya tan iyo intii ciidamada Kenya ay ka talaabeen xuduudaha Soomaaliya muddo 5 sano haatan laga joogo waa haboon aadan meegaag telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV Abdullahi Maxamuud Muxiidiin Xiinka intaan warkan war lamida ku kulmi doono annaga iyo bahada TV-ga Raya waxaan idinkaga tagnaa sidaas iyo amaana Allah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh